habeennimadkii xalay abbaaro labadii habeennimo ayaa waxaa magaalada Buuhoodle soo gaaray wafdi ballaaran oo ka koobnay 10 xubnood waxayna wafdidaasi ahayd guddida qabanqaabada shirka Khaatuma 2 haddaba wafdidani ayaa waxaa xalay si diiran u soo dhaweeyay qaar ka mid ah odayaasha deegaanka ururada dhalinyarada bahda isboortiga waxayna kaga hortageen tuulada Kuusay oo 10 kiiloomitir u jirta magaalada Buuhoodle kuna taala gudaha Itoobiya waxaana loo soo galbiyay dhinaca magaalada Buuhoodle waxaana la keenay hotelka Cabdiguray Plaza Hotel waxaana goobtaasi soo buuxdhaafiyay dhammaan dadweyne badan oo isugu jira kuwa sugayay iyo kuwa hurdo ka soo kacay soo dhaweyn iyo salaan kadib xubin kasta oo ka mid ah guddida waxa uu dadka u sheegayay magaciisa oo saddexan iyo meesha uu ka yimi waxaan la socdaa guddida ka timid beesha dadweynaha بيش أنا وحنكمل خاصة ودنك كندا. بسم الله الحمد لله أنا وحنا عبد الناصر حاج عيسى وحنكمل ودنك نوروي أوسلو. وحنكمل مقعد وحنا عبد الناصر حاج عيسى وحنكمل دلك نوروي مقالة أوسلو. محمد يوسف جامع النشال حنكمل هاي بجدي خبر قابضة شو ولا هلو بعد خاتمته معنا كي مودك هون. بسم الله الرحمن الرحيم محمد وعلى عبدي معنا كي من دلك يوكي مقالة لندن وحنا كتصدق بجدي خبر قابضة شركة إن شاء الله خاتم. بسم الله الرحمن الرحيم حسن علي يوسف الله يرحمه جدي كان كتير سنة هاي خبر قابضة شركة خاتمته. waxaan ka yimid waddanka Mareykanka Virginia. bismillaahi raxmaani raxiim magacayga waxaa la yiraahdaa maxamuud diiri cabdi joof waxaan ka mid ahay guddiga qabanqaabada Khaatuma 2 waxaana ka yimid waddanka Canada magaalada Ottawa. arxim abshir cabdi qoobire guddiga qabanqaabada London UK. bismillaahi raxmaani raxiim cabdirashiid maxamuud salawaan guddiga qabanqaabada shirka Khaatuma 2 أوروبا كندا. بسم الله الرحمن الرحيم عبد الله محمد هيبي وحن كمل هاي قدي قوان قابضة خاتمة 2 وحن كي وطن إنجليز خاصة مقالة لندن. بسم الله الرحمن الرحيم مقعد واحد فيصل أحمد حاج فرح وحن كي من لندن وحن كمل هاي قدي قوان قابضة الشركة خاتمة 2 waxaa dadweynaha goobtaasi ku soo xaadiray ee soo dhaweynayay guddida qabanqaabada shirka Khaatuma 2 la hadlay gudoomiyaha guddida qabanqaabada shirka 2 Xasan Cali Yuusuf waxaana uu u mahad celiyay dhammaan dadweynaha halkaasi ku soo dhaweeyay waxaana sidoo kale isaguna uu ku wareejiyay hadalka afayeenka guddida qabanqaabada Cabdulla Maxamed Haybe waxaana uu afayeenku uga mahad celiyay dhammaan dadweynahan soo dhaweeyay magacay waxa la yiraahdaa mar labaad Xasan Cali iyo Tooba waxaan ahay gudoomiyaha guddiga qabanqaabada ee shirka beesha lagu magacaabay Khaatuma 2 ama Khaatuma 2 aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa soo dhaweynta wanaagsan aad soo dhaweyseen anigoo jooga magaalada Buuhoodle waan daalanahay wax badan oo dhamaayo waxaan idinku wareejinayaa afayeenka guddiga qabanqaabada oo ah Cabdulla Maxamed Haybe si uu kelmad idinku yiraahdo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaa mahadle ilaah allihii ina abuurtay ee ina khalqay ee sida tan quruxda badan inoo abuuray waxaa kaloo mahadle shacabweynaha reer Buuhoodle ee sida quruxda badan noogu soo dhaweeyay saacada tan 3 habeenimo aan u maleynay saacadu ku beegan tahay noogu soo dhaweeyay magaalada Buuhoodle annaga oo nabad qabna haddii nabad qabna waa ku nimi nabadna waanu la nimi nabad qabna waanu ku nimi nabadna waanu la nimi magaalada Buuhoodle runtii waxaan mahad ballaaran u soo jeedinayaa anigoo aan jeclayn aan hadalka aan ku dheeraanayn waxaan mahad ballaaran u soo jeedinayaa deegaanka Buuhoodle magaalada Buuhoodle shacabweynaha degan oo muddooyinkan dambe si aan taxadir si xad dhaaf oo xadka ka baxsan
ugu guntaday danaha beesha SC ama Sool Sanaag iyo Cayn walaalayaal waxaan mahad ballaaran mar labaad soo jeedinayaa sida quruxda badan la noo soo dhaweyseen dawaa suuraysan doonaa waana nimid waan idinla joognaa haddii alla idmo dawixii warana waa gadaal baan iska waraysan doonaa annaguna waa daalanahay kulli waa iska soo wada dheer baan soo marnay waxaan kaloo mahad u soo jeedinayaa suldaanka Suldaan Saciid oo ahaa raggii intaan dhexda soo soconay kulli suldaan ah isagoo baa joogan u malanaya hadda wax isna magaalada aan dhexda kala soo hadalay si qurux badanna kulli noogu soo dhaweeyay magaalada aad baad u mahadsantihiin saaxiibkay Yaasiin Axmed Sulub oo kulli isaguna kulli si kastaba ha ahaatee soo dhaweynta guddida qabanqaabada shirka Khaatuma 2 ayaa waxa ay ku soo beegantay xilli ay dhammaan dadweynaha ka hordeen magaalada Buuhoodle haddana aad ayaa loo soo dhaweeyay guddidaasi Xamse Xasan Geelle Darwiish TV Buuhoodle